dhawaan ayay ahayd markii ay in ka badan 20 xisbi siyaasadeed ay ku midoobeen xisbiga midowga dimuqraadiyadda dadka Soomaaliya magacaas oo hoga tusaaleynayay in ay himiladoodu tahay nidaamka dimuqraadiyadda asalkeedu yahay doorashada dadweynaha ee qof iyo codka si ay taasi u sii ambaqaadaan ayay maanta si rasmi ah magaalada Muqdisho shirkooda koowaad ugu doorteen hoggaanka xisbiga midowga dimuqraadiyadda dadka Soomaaliya waxaana markii ugu horeysay codkooda ku ciilbaxay xubnaha xisbiga kuwaas oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada sida duqoob iyo da'yar si gaar ahna ahmiyadda loo siiyay dumarka iyo naafada ugu horeyntii waxaa shirweynaha koowaad ee lagu doortay gudoomiye Cali Nuux Timajilic ka hadlay Professor Cabdilaahi Salaamullaahi oo ahaa hoggaanka guddiga qabanqaabada shirka iyo doorashadaba dhammaantiin ayadoo bil Ramadaan aan ku jirno maalin Ramadaan ay tahay ajiibistii ay soo ajiibteen waqtiga qaaliga ah oo waqtigiina runtii meelo fog aad kaga timaadeen degmooyinka 20ka degmo ah ee gobolka Banaadir uu ka kooban yahay runtii kulankan waa kulan runtii sharaf iyo qiimo noogu fadhiya dhammaanteen taageerayaasha midowga iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo marti sharafta lagu casuumay intuba hadafka laga leeyahay kulankan wuxuu ahaa in la muujiyo ummadda Soomaaliyeed oo muddo 30 sano ah ku jirtay wax la yiraahdo 4.5 ama wax la yiraahdo ila meerayso nidaam la yiraahdo inay ka gudubto ayaa loo aasaasay ururada siyaasadeed qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ayaa soo dhabeeyay doorashada gudoomiye Cali Nuux Timajilic iyagoona ugu baaqay in uu ka dhabeeyo balanqaadyada uu ka sameeyay shirka dadka kala qoqobin inuu waxa naafo iyo qof xoog la u kala qoqobin inuu qabiil u kala qoqobin inuu san macnaha waa reer hebel kala oo san u qiyeen dadku mid yihiin midnimadaas lagu soo wada galo midnimada meesha xisbigu tarjumayo waa midnimo guud oo dhinac kasta ah marka hore gudoomiyaha Hambalyan leeyahay tiimka wuxuu ahay la doortay mas'uuliyiinta xisbiga hadda wadanka dabcan sida ogtiin ku fiican liiri doorasho liiri anaga xisbigeena banaankaas uu yaala waa ujeedin Soomaaliyeed insha Allah waxaan diyaar u nahay wadanka iyo waxa dhacay doorashooyin bidilaa Mawla gudoomiyaha Timajilic waanu hambalyeynaa horta marka koowaad dhamaanteen aanu hambalyeyno hambalyo waxaan leenahay xilkan Allah kugu asturo waxaan rajaynaynaa inaad sida aan hadda ka arkayno oo mudnaanta leh dadka dhamaan ay wada matalayaan bulshada inaad aadan ka laabanin waxaan leenahay maanta waa maalin weyn oo lagu xaqiijinayo taasoo lagu badbaadinayo looguna dareerayo maxaa la yiraahdaa qof doorashada qof iyo cod oo si markaas ay loo badbaadiyo dalka waanu rajaynaa dawladdu inay fuliso mashruuceeda qof iyo codka waayo qof kasta oo Soomaaliyeed fursad buu rabaa inuu ka helo siyaasadda wuxuu rabaa damac buu leeyahay laakiin haddii mid dadban waxay noqotay ninkii lacag haysta idinka qaadano runtii xisbiga si sharafta leh oo noogu casuumay annaga hal ku dhigan waxa waa disability is not inability haddii aan naafo tahay qalbiga maliid xisbigii ugu horeeyay tixgeliye u yeero wadatashi ka siiyo la hadlo xisbigan waa idinku faraxsanahay xisbiga mar kale gudoomiyaha la doortay saaxiib baa wada ahaynay xisbigan asigaa noogu yeeray 3 shir la qabtay shirkii saddexaad shirkii ugu horeeyay koowaad hadda maanta dhacayo dhammaan xisbiyada ururada ku jirana woona baray dadka hadda maanta waxa xisbiga ka socona shaatigiisa xiranahay waxaan lagu tixgelin naafata lacag waxaan lagu tixgeliyay aqoonteena ugu dambeyntii waxaa doorashada ka mahad celiyay hoggaanka cusub ee loo doortay gudoomiyaha xisbiga midowga dimuqraadiyadda dadka Soomaaliya mudane Cali Nuux Timajilic alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo dhammaantiin inta tiri haa iyo inta tiri maya iyo inta ka aamustay dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantiin oo ku faraxsanahay dadka idin hortaagan waa dad mutacalimiin ah waa dad dhalinyaro ah waa dad
yacni aan cidna aysan waxba dheerayn, isku filan, socda, wax qora, wax akhriya, nuucyo badan bay leeyihiin. waxay leeyihiin dhagoole, waxay leeyihiin indhoole, waxay leeyihiin naafada jirka. waxay qayb ka yihiin oo ay ka tirsan yihiin oo aan rabnaa inaan codkooda ka barino oo ka codsanno dadka baahiyaha gaarkaa qaba, xubnaha ugu sarsareeya iyo kuwa golaha dhexe ayayna ka mid noqonayaan. waxaan rabnaa xisbi kasta iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada in la ogaado dadka baahiyaha gaarkaa qabaahi inay leeyihiin xaq muwaadin oo aan yacni lagu tumanin xuquuqdooda, oo aan la dhihin waa indhoole, oo aan la dhihin waa dhagoole, oo aan la dhihin waa curyaan, ee ay xafiisyada dowladda qayb ka noqdaan. haddii ilaahay idmana ururkan ama xisbigan MDD waxaad ku arki doontiin madax sare oo dhagool ah, madax sare oo indhool ah, madax sare oo wheelchair ku socoto curyaan ah, oo waxba kaa baryayn adiga, wax akhrin kara, wax qori kara, wax sheegi kara, feker leh, adiga kaa horeeya. wax walba ilaahay baa bixiya. alxamdu lilahi xamdan kasiiran dayiban mubaarakan fiihi. waxaan rabaa si kalsooni leh inaad ugu soo dhawaataan MDD. xisbigan waa xisbigiinnii. maxamed axmed yuulka, TV-ga caalamiga hoyga banaadir, magaalada caasimadda ee muqdisho.